بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. وحنوم علينا يا مانتي ديار وحنومنا حي إن نعمها استقصنا وأن خير اسكت هاجرنا. ديار ما نهي. ديار ما نهي مانتي. إلهي هذول إنه مانتي waxaan Boston ka bilaabi doonaa calaamad aad loogu farxo hadduu ala yiraahdo calaamadaas oo faa'iido u ah dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. halkan waxaad ku aragtaan darbi walbo jaamacad baa ku qoran. jaamacaddu waxay tilmaamaysaa meesha ay ku taalo iyo magaceeda iyo xilliga la aasaasay. marka waa runtii waa astaan aad iyo aad u qurux badan. waxay kordhinaysaa rajadii kordhinaysaa wax kale inaan meesha kuma sharxin qurux ma ahan waa inaan kordhino kor u qaadno rajada shacabka Soomaaliyeed. marka insha Allah khudbadii way dheeraatay gabagabadii barnaamijka ayaan insha Allah maraynaa naga raali lahaada. waxaan hadda from Boston back to guuri doonaa baadheer u guuri doonaa hadduu alayah. We're going to show you live baadheer. waxa su'aalo badan dadku way qabaan leen baadheer sawir yaa kuma middle school ma ka jira high school ma ka jira questions badan baa dadkii maskaxdoodii ku wareegsanay before aan baadheer inagu guurin inagoo wada soconno waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo mikrofoonka Professor Maxamed Faarax Jaamac Professor Soro. سرنبات اللي وش وانا كبير وسبت عن مقال منطقه او كلام wax umreeda wixii la dhihi karo waa lahay Soomaali fiican ma habo kuwanaad qasay horta waa isa markii walaalkii aad iyo badan ma santiin inaad event. We really have to support Gala University. هي الجامعة والمشروع مارة كتار. ده حاجة في اليوم حصلها حاجة هذا الدكتور. بس أنا الحمد لله وين أخير أنا منطقة أنا عن تريوم أنت جامعة كتار والمشروع. كاسة وحنا نقطة عادين كوي تور. تصميم بكل شيء جزء. حكوا شيء جزء. حكوا شيء جزء الصومالي هنا سلمان والنور. وحبان قرآن أصلا بركة اللي يسوعي ولا يسوع واحد عليهم حكى الله ما قال سوى الله هاي حبان طايع واحد كنت كهلا مركب article عن قرآن or the whole Somali youth call for different action. هذا هو call for different action بحيثان بل يربي إنه يجد الصب جهان إنه يجد الصب oo ayaga ay leeyihiin oo dhaxal ah inay bilaawaan dadkii lagu horeeyay Soomaaliya ayagana ku guriyay ragga soo socday gabdhaha iyo wiilasha dhaxalkooda wuxuu yahay baa loo baahan marka qoraalka qoray waxay ahayd dhaxalkii wuxuu yahay mid kale iga raadlaho dhaqtarada statistics ayay ka dhawaajisay waxaa jira waxa hadda qoraya oo la rabo dumarka Soomaalidu waxa the better half of the society statistics statistics baraha ku ah qofkii Soomaaliyeed inay u barteen barashada taas waxay ku sheegaysaa hadda waxay ku sheegaysaa ilmaha ay dhalin doonaan inay wax baran doonaan dhaxal fiican heli doonaan waa you better think strategically. You better really have to think of long term, not short term. maanta waxa socdo you look at it and you can forecast waxa dhici doona gabadha Soomaalida marka wax la baro
عنق الصومالية يقدر عنق الصومالية يقدر دوتنا حدي علم البرو وقطع لدونا بيسر هاي هذا هو مركي قطع الصومالية وقبطان إلى وحبطان وحكوش شيء Somalia is back not today but tomorrow wait about it marka taas ayaa aanu ka gartay dumarka Soomaaliyeed inay u bateen inay wax bartaan mid kale ragii la arag last 20 years or more Soomaa kabdhow kumeeye dumarkii meeye why you have to take the lead especially you maxaa dhacay because qof walba ama wax burburiyo ama wax isoo gurigu ka imaado Soomaa gurigu ka imaado yaa joogo dumar baa jooga Soomaa ya marka burburku waxaa ku leeyahay haddii wax la dhisana waxbaa ku leeyahay Sami is right. What you could correct me? It's that. Yeah, we've got to talk. Okay, Marco, in that article I talk about 3 things: health, education, diplomacy, and peace. It is my hope Ghana University takes that initiative. Peace, diplomacy, and education. And inshallah, Somalia is back. That's all I have to say.